qiimaha badan hawada nagala soo تليفون صحو مقال صافيو أسألوك لهي صوتير برشوي وهدك وهدك تليفون صحو مقال صافيو أسألوك لهي صوتير وهدك تليفون صحو مقال صافيو أسألوك لهي صوتير برشوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا سوينا السنة خيارات قيمة بدنا هو نقل سعوتاي ميل كستاد شوكتان هلكن هو تلفزيون كقرنك الصومال لا waxaan ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka Soomaal oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka qaranka Soomaaliland oo ku tartamaan dad kala duwan kuwaas oo aan weydiino su'aalo kala duwan oo ilaa 22 su'aalooda kuna tartamaya lacag gaaraysa 3 milyan oo shilinka Soomaaliland meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Soomaal kulanti wanaagsan waxaan u yeeli doonaa ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijku waa Cabdiraxmaan Aadan Faarax loo saabiyo السلام عليكم عبد الرحمن آذن فارح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دو برنامجك كسمان عبد الرحمن. وين دوي؟ واحد warbixin iga siisaa in arday tahay shaqo kala diyaar jirto qabato halka aad degan tahay aniga daawadayaasha weynta aad warbixinaysaa okay waxaan deganahay xagan New Hargeysa qaybta suuqa soo xigta adoo shaqaalaan ahay alxamdulillah wala shirkadu ayaan la shaqeeyaa shaybaarka alaabadiisa waxa iibisa Cabdiraxmaan waxaad iga wartay barnaamijkan daawatiye kale waan daawadaa sometimes mararka qaar waan daawadaa barnaamij xiiso leh aad baan maasantay daawada aad lagu daawanaya oo laga yaabo meesha insha Allah waxaan baa fadhiya la oranaya ma ogtay insha Allah waxaad aad xasuunataa laba jeer in dadweynuhuna caawin doonaan hadii ugu adkaadaan laba jeer waqtiga kamidana hadii la yiraahdo mid laba inaan ka tuuri doono bismillah waan ku bilaabi doonaa su'aasha waa erayga nidaam asalkiisu waa af carabi marka uu af Soomaali yahayna waa ba himilo ta milyan ja milay ha hana nidaam سقلت السومالي waxaa nidaamka hala mararka qaar baa nidaamka hal hagaajiyo ama nidaam ina laba ka tuuriyada dadweynuhuna waa نفسي أنا لما كنت رأيه ذي نفسي حويا تا قرشة كواد كسانسة تا قرشة ينا جوابت السؤال شو سيدا سقلت أي كنت هاي وهنا عبد الرحمن هذا ما قصنا عبد الرحمن waxaan u yeeli doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijku waa Sakariye Cali Cismaan la saaxiibay السلام عليكم Sakariye Cali Cismaan عليكم السلام عبد الرزاق kusoo dhow Sakariye barnaamijka وندوه Sakariye waxa tafaasiil iga siisaa ama warbixinka aad degan tahay in arday tahay adii aad halka laaysanay daawadaasha inta aan ugu waxaan deganahay gobolka Gabiley xaruntiisa Gabiley gobolka wax soo saarka waxaan isku ka Sheekh Maxamed Warsame hoose dhaxayeen macalinka ma sha Allah ayuu khariifta macna Sakariye barnaamijkeena daawatidii kale وان دورك سنة دنبيسي وان أدبن ولا السعودية. أنا شو داونس. نبي ميلي لقى داوني على كم ميلا ميلان لقى داوني متجرته. وحن سيد فيلمان مسلسل كأوكله. أيها حليده وقت يده وسوق ليه برنامج كان كسمال. داديها كتاي. قفل بود يركبه. سكري واحد يقول أنت المعلومات طبعا معلومات فربنا كاي مرة برنامج كقاب كلوصة ديال السوق كلها مغلاضة كمان والله أد وحتى قوليها قربها تشوقها هي خلاص على كام هذه تكنولوجيا عصرية قرنية كوبي لا تناد إنه صورة كشيء ما شاء الله
maadada dhigtaa inta badan waxaan dhigaa ingiriiska ingiriisiga maasha allah sakariye meelaha ugu faraha badan ee gabadhi ka daawan jirteen aga kale waxaa ka mid ahayd hudheelkii xiriistada hudheelkiisa halkii baa dabca adiga laga daawanaya hadii alla meelo fara badan aad baan u salaamay asxaabta waanan ku bilaabi doonaa insha allah insha allah su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa marka la isku daro erayo waxa samaysma marka la isku daro erayo waxa ay sameeyaan ba xarfo ta erayo ja qoraallo xa weedho marka la isku daro erayo waxay samaysaa ereygiibaa erey kale lagu daraya marka waxay samaynaysaa waa weedho ku adkaysanaysa haa waa hagaag xa oo weedhaa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax tahay su-aasha labaad indhaha waxa kale oo la yidhaahdaa indhaha waxa kale oo la yidhahaa ba wiilal ta dhafoor ja dhaayo xa jalleeco waay su-aasha haddii aan isku dayo waxay la tahay ja-da dhaayo ja oo dhaaya inaan laba kaa turiya dadweynenimada noo harsan yahay may waan iskaga adkaysanaya waa hagaag ja oo dhaaya ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay yaa macali sakariye saddex su-aasha saddexaad naanaystii cumar binu khadaab waxay ahayd naanaystii cumar binu khadaab waxay ahayd ba sayid cumar ta alfaris ja alfaaruuq xa alshujaac amiir ulmuminiin cumar bin khadaab radia allaahu canhu waxaa lagu naanaysi jiray alfaaruuq oo yufariqu bayna alxaqi waalbaadil wuxuu kala saari jiray xaqa iyo baadilka waa hagaag ja oo alfaaruuqa ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay yaa macali sakadii afar baynu maranaa garanuugta dhadig waxaa la yidhaa garanuugta dhadig waxaa la yidhaa ba baryacad ta tingey ja daalilo xa banjoog garanuugta garanuugta teeda dhadig laba iga tur laba ka mida ayaan ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay ta tingey iyo ja daalilo waay dadweynahana u dhib xabad kale waynu si fududeyne waa hagaag daawadayaal waxaan doonaynaa inaad naga caawisaan afar baanu maraynaa waa markii koowaad aan idiin baahano dabcan waxaanay su-aashu idi odhanaysaa garanuugta dhadig waxaa la yidhaha garanuugta dhadig waxaa la yidhaha waxaa isku soo hadhay ta oo tingeya iyo ja oo daalilaa imise qof ayaa le waa ta oo waa tingey aada ugu fiirsan imise qof ayaa le waa ja oo waa daalilo aan isku soo noqon afar qof oo ka mid waxay yidhahan waa ja-do waa daalilo laakiin badi dadkaasi codaq laba waxay yidhahan waa tingey waay waa tingeyadooda u daa soodaasaan deena dayna qaldaan macalinka wara markaa waan iskaga kalsoonnahay marka hore ayaynu kalsooni siinay dayna saxaanna waa sax marka way mahadsan yihin ta oo tingey jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha shanaad kooraha faraska lagu xidho waxaa la yidhaha xadhigga kooraha faraska lagu xidho waxaa la yidhaha ba wegerad ta xadhig ja xeer xa dhammaan waay dadweynean u dhiibana taan nabadaan ku celina
waagaag markii hore anigu aad iga mahadcelina si aad noo caawiseen mar labaad ayaan dabcan jecelnay inaad iyadana noo caawisaan waxaanay su-aashu ida odhanaysaa xadhigga kooraha faraska lagu xidho waxaa la yidhaha xadhigga kooraha faraska lagu xidho waxaa la yidhaha ba wegerad ta xadhig ja xeer xa dhammaan imise qof ayaana waxaa la yidhaahdaa ba wegerad imise qof ayaale ta waxaa la yidhahaa xadhig imise qof ayaale ja waxaa la yidhahaa xeer imise qof ayaale xa waa dhammaan aan isku saa noqono dadkaasi bedi waxay nagu dhahay waa wegerad weeye oo ba'da ah oo xeerku meenu xadhig ayan jirin ya xeer weyn la-aan jirnay iyo xadhig iyo wegerad inta waa laga xidhay waxaanu raacnaa toodin way badan yihiin maxaad ka sheekada marka xadhigga maya xeerka iyo xadhigga baan sir labadaa iyo wegeradna waa kuwa codeeyey saddexduba markaa dhammaan bay noqonaysaa laakiin toodaas ku raac toodaan ku raacna waa hagaag ba oo wegerada ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay aad iyo aad u mahadsan su-aasha lixaad su-aasha lixaad waxayna odhanaysaa kitaabka assubuur waxa uu ku soo degay kitaabka subuur waxa uu ku soo degay ba nebi shucayb calayhi salaam ta nebi saalax calayhi salaam ja nebi ciise calayhi salaam xa nebi daa'uud calayhi salaam sabuur waxa ay ku soo degay kitaabkaas waxa ilaahay ku soo dejiyey nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam nebiyullaahi daa'uud calayhi salaam ku adkaysanaysa ku adkaysanaya xa oo nebi daa'uud ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay toddoba ayaynu maranaa su-aasha toddobaad waxayna odhanaysaa asxaabigii geeridiisa ay ku soo degeen 70,000 oo malag waxa uu ahaa asxaabigii geeridiisa ay ku soo degeen 70,000 oo malag waxa uu ahaa ba cumar binu khadaab ayra ja sacad binu jabal xa sacad binu mucaad way haddii aan isku dayo su-aashaas toddobaad asxaabigii geeridiisa ay ku soo degeen 70,000 ee malag waxa uu ahaa mucaad binu jabal buu ahaa ja oo mucaad ibnu jabal hal maro mucaad binu jabalka ja-dawda aada uga fiirsa macana nin waxa walgu yidhi asxaabigii geeridiisa ay ku soo degeen marka waxaan maranaa 7 meel xasaasi aada uga fiirsa waayahay oo mucaad binu jabal oo ja-daa weeyaan ja mucaad ibnu jabal hal mar inaa laba kaa tuuraaba inuu arsan ku eegna si ay dee ku eeg haa ku eeg nasiibku caadi nafar laba ka mida ayaa ka saarin ja-dan macnihi ku eeg baan ku leeyahay caasigeediya innagoo hubnaynu mucaad ibnu jabal yahay haddana markaan laba ka saarina waan kusii xaqiijinaa maye jaanis baynu yeelanahay waa inaad han lahaa tahay laga yaaba haddaynu ka saari weyno innagoo tiino arsanta inay qalad noqotaynu kacnana waa dhici maye waa caadiyo marka hore guuliyo guuldarraba bidixii midig bay u kala jiraan marka aynu dee wada tashanno oo aynu laba ka tuur may ka tuuri mayno mucaad ibnu jabalka utaa mucaad ibnu jabal asxaabigii geeridiisa ay ku soo degeen 70,000 oo malag waxa uu ahaa ja mucaad ibnu jabal go-aankaaga u dambeeya waa caadi waa hagaag asxaabigii geeridiisa ay ku soo degeen 70,000 oo malag waxa uu ahaa ja mucaad ibnu jabal jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waa sacad ibnu sacad ibnu waa hagaag waxaan u yeedhi doonaa ka qaybqaataha saddexaad ee barnaamijka ka qaybqaataha saddexaad ee barnaamijku waa umulkhayr caydiid cabdi umulkhayr loo saxaadiyo السلام عليكم أم الخير عيديد عبدي عليكم السلام كسر دوا برنامج كسمة وان كدوه أم الخير واحد وربحيني قصة سالك دقنت هاي
inaad ardayo tahay haddiiba aad guriga joogto wixii macluumaad anigii daawadeesha bana siin karta ugu horreyn waxaan deganahay xaafadda October waxaan ahay ardayad dhigata kulliyadda caafimaadka ka tirsan iskuulna Hargeysa School Nursing gaar ahaan qaybta caafimaadka maxaa ku jeclaatay khilaafa caafimaadka aad baratay run ahaantii waxyaabo badan sidaan ummadayda aan u caawin lahaa bulshada aan uga dhex muuqan lahaa ayaan masha Allah aad baan kugu hambalyeynaa inaad moogtahay insha Allah hamadana kamid dhalisaan rajeynaa insha Allah ina barnaamijkan daawasiin karo mafara aad waan daawadaa dhif laakiin kuma badni laakiin waan xiiseeyaa inaan insha Allah waxaad aad u xasuunataa laba jeer inaan laba kaa tuuri doono laba jeer dadweynaha caawin doona bismillaah waana ku bilaabi doonaa su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa marka la isku daro xarfo waxa samaysma ba curis ta ereyo ja xarfo xa midna haddana su-aasha jawaabteeda isku dayo waa ta'da ta oo ereya ku adkaysanaysa waa hagaag ta oo ereyaayin wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa ciddii ugu horreysay ee alla caasidaa waxay ahayd waxay ahayd ba munaafiqiin ta yuhuud ja ansaar xa shaydaan haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa xa'da xa oo shaydaanka inaan laba kaa turi dadweyne inuu harsayn waan ku adkaysanay xa oo shaydaana ayaynu eegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha saddexaad waxay ku odhanaysaa war dhiilo leh waxaa looga jeedaa ba hadal badan ta hadal yar ja hadal naxdin leh xa intaba waagaag markii koowaad aan idiin baahano animalkaadi runtiina waxaan maraynaa su-aasha saddexaad waxaanay su-aashiida odhanaysaa war dhiilo leh waxaa loola jeedaa ba hadal badan ta hadal yar ja hadal naxdin leh xa intaba imise qof ayaa le waa ba oo waa hadal badan imise qof ayaa le waa ta hadal yar imise qof ayaa le waa ja hadal naxdin leh imise qof ayaa le waa xa intaba waxay bedi dadkaasi lagu yidhaahdeen waa ja oo hadal naxdin leh war dhiilo leh marka lagu soo sheego waa hadal naxdin leh waa hagaag ja oo hadal naxdin leh ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afaraad waxay ku odhanaysaa xooluhu marka lasoo waraabiyo waxa loo yaqaan xoolaha marka lasoo waraabiyo waxa loo yaqaan ba way cokan yihiin ta way cifanayaan ja way caaleen xa waa la aroorinayaa weli xoolamayna kaxaysa maa kolley haddana waan isku dayay insha Allah insha Allah ba way cokan yihiin ku adkaysanaysa waa hagaag ba way cokan yihiin ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha shanaad waddanka maraykanka waxaa guumaysan jiray ba jarmalka ta ruushka ja faransiiska xa ingiriiska haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo xada xa oo ingiriiska laba jeero inaan laba kaa tuuriya mar dadweyne harsay ku adkaysanaysaa xa oo ingiriiska ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay lix ayaynu soo gaarnay meel xasaasiya nimi su-aasha lixaad
faraskii raaga ugaas waxaa la odhan jiray faraskii raaga ugaas waxaa la odhan jiray ba xamar ta dhoodimeer ja walhad xa weyrax su-aasha haddaan isku dayo waa jecel ja oo walhada weli layna laba kaa tuli dadweynuhuna harsiima ku adkaysanaysa ja walhad ja oo walhada ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay riwaayaddii hadimo waxa curiyey riwaayaddii hadimo waxa curiyey ba hadraawi ta cabdiqays ja cali sugule xa gaariye su-aasha dadweynaha inaa cid riwaayadda daawatay haliyo laga yaabaa su-aashu waxay idin odhanaysaa su-aashii toddobaad ayaan u baahanay inaad naga caawisaan su-aashuna waxay idin odhanaysaa riwaayaddii hadimo waxa curiyey ba hadraawi ta cabdiqays ja cali sugule xa gaariye imise qof ayaa le ba hadraawi imise qof baale waa ba oo hadraawi imise qof ayaa le ta cabdiqays imise qof ayaa le ja cali sugule imise qof ayaa le xa gaariye isku soo noqono laba qof oo ka mid waxaynu ku idhahdeen waa ja cali sugule laba qof oo ka midna waa gaariye nugu idhahdeen ilaa 9 qof oo ka mida dadweynuhuna waxaynu ku idhahdeen waa ba oo waa hadraawi baaban ku adkaysanaya baan ku raacna adiga ka war insha allah horta bedego barcad iyo barmadow kolley guulun baan ka filayaa insha inta garanayna badafta reena saxaana waa maadsan wanaagsan ba oo hadraawi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay yaa mukhayr 8 baynu soo gaarnay 8 oo weliba aad waxaa laba jeer inaami laba kaa tureersan masku waxa uu noolaan karaa cunto la-aan masku waxa uu noolaan karaa cunto la-aan ba muddo maalin ah ta muddo wiig ah ja muddo bil ah xa muddo sanada maska inkastoo dadka badankooda qaar necab yihiinba soo hadalqaadkiisa haddana laakiin macluumaad baa ku jira inaan laba kaa tuuro laba ka mida ayaan ka tuuri doonaa afartaasi su-aalood waxaa isku soo hadhay ta muddo wiig ah iyo xa oo muddo sanada ta muddo wiig ah masku waxa uu noolaan karaa cunto la-aan ta muddo wiig ah go-aankaaga u dambeeya mukheer go-aanka gaarta waan ku adkaysanay masku waxa uu noolaan karaa muddo cunto la-aan ta wiig ah go-aankaaga u dambeeya xaadan ku adkaysanay xa oo muddo sanada masku waxa cunto la-aan noolaan karaa xa muddo sanad aad ku adkaysanaysaa codka kor qaad xa muddo sanada waa hagaag xa oo muddo sanada ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 9 baan soo gaarnay su-aasha 9aad waxay ka odhanaysaa ereyga yaambo asalkiisu waa ereyga yaambo asalkiisu waa ba af oromo ta af sawaaxili ja af urdu xa af carabi fursadii maxaa xirdan
hal mar inaan laba kaa tuuraa bayna harsan yaambo waad aragta soo marta soo arag ma arag maad arag meel xasaasiyaynu marnaa yaambo qolada beeralayda aada u garanaysaa sagaarmaan soo gaarnay meel xasaasiyaynu marnaa ba'da ba oo af oromaa hal mar inaan laba kaa tuurina walaa inoo harsan tahay laba qaada inaan ka tuurno laba tuur laba ka mida oo qalada ayaynu ka tuuri doonaa oo madi wayna deysay waxaa isku soo hadhay ta af sawaaxili iyo ja af urdu ta'da ta oo af sawaaxili ku adkaysanaysa ereyga yaambo asalkiisu waa ta af sawaaxili oo ku adkaysanaysa jawaabta su-aashaasi ayaynu wada eegi doonaa oo xasaasiya 9 ayaan maranaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha tobnaad su-aashani waa 250,000 oo shilinka somalilan su-aasha tobnaadna waxay ku odhanaysaa dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa dadku marka uu hadlaayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ba 44 ta 30 ja 22 xa 11 su-aashana waa 250,000 oo shilinka somalilan dadweyne way naga dhammaadeen inaan laba kaa tuuraano waa dhammaadeen oo mukhayro maskaxdayna aada u tuujiso loo baahan yagaa soo hadhay waa su-aal iyadana aada u adag runtii marka la eego xasaasi bay iyada laftirkeeda noqotay maa muruqyada qofku markuu hadlayo markaan hadlayna kuwan daamamkii kuwan caafimaadkana de xoogay baad kaga hastaan carabkii waa xitaa muruq noqonayo khayr su-aashana waa su-aashii tobnaad ta oo 3 dadku marka uu hadlaayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ta 3 go-aankaaga u dambeeya go-aanka gaadh khayr xa oo 11 dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa xa 11 waa 250,000 oo shilinka somalilan go-aankaaga u dambeeya khayr go-aanka gaadh dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ja 22 go-aanka gaadh go-aankaaga u dambeeyo khayr dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa go-aanka gaadh ba oo 44 dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ba 44 muruq go-aankaaga u dambeeya waa ku adkaysanaysa dadku marka uu hadlaayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa su-aashani waa 250,000 oo shilinka somalilan ba 44 go-aanka gaadh ba waa ku adkaysanaysa go-aankaaga u dambeeya ba oo 44 muruqa dadku marka uu hadlaayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ba 44 codka kor qaad go-aanka gaadh ba'daasaan ku adkaysanaya dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ba 44 sax ama qalad ama sax dadku marka uu hadlayo muruqyada uu adeegsado tiradoodu waa ba 44 muruq jawaabta su-aashu
sidaasi ayay sax ku tahay. aad iyo aad baan kugu hambalyeynayna hambalyaan ku leenahay. wareegga labaad baynu usii gudbaynaa. go-aanka adiga iskale inaad sii wadanaysid iyo inaad intaa ku joojinaba labadaba go-aanka adiga iskale. waan isku dayaya hasiiba ya cod kalan sii wadan isku dayaya insha sii Allah wadanaysa aad iyo aad lagu sacabiyo magada sii wadanaysa. su-aasha 11 su-aasha 11 waxay ku odhanaysaa nebi sulaymaan markii aabbihii xukunka kala wareegay nebi sulaymaan markii uu aabbihii xukunka kala wareegay da'diisu waxay ahayd ba 16 sano, ta 10 sano, ja 11 sano, xa 12 sano. haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo ba'dan ba oo 16 sano ku adkaysanaysaa. markii nebi sulaymaan aabbihii xukunka uu kala wareegay da'diisu waxay ahayd ba 16 sano. jawaabta su-aashaasi ayaan wadeegi doonaa. jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay 12 sano. aad iyo aad lagu saxayaa. xawaalada dahabshiil waxa ay bisha barakaysan ee Ramadaan ay ku samaysay qiimo dhimis lacagta khidmadda ee dirista ah iyadoo boqolkiiba hal laga qaadi doono. sidoo kalena bisha barakaysan ee Ramadaan 10 ka dambe waxay xawaaladu ku ballan qaadatay inay furnaan doonto ilaa 10 ka habeenimo. sidoo kalena lacagaha lagu soo diro waxaad ku heli doontaa e-dahab meel kasta oo aad dalka ka joogto. dahabshiil park international waxa uu bulshada ugu bushaareynaya adeega cusub ee la magacbaxay xajan cumra kaasi oo ku sahlaya in si dhib yar aad ku soo xajto kuna soo cimraysato isagoo kaa bixinaya kharashka boqolkiiba 50 haddii aad adigu haysato boqolkiiba 50 kale kaasi oo ah qardul xasana. waxaa lagaga baahan yahay shuruudaha ah inaad haysato baasaboor shaqaynaya inay da'daadu ka weyn tahay 25 iyo sidoo kale inuu akoonkaaga furan yahay dahabshiil park international. bushaarada Ramadaanta waxaa shirkadda isgaarsiinta ee casriga ee Somtel ay qiimo dhimis kugu samaysay adeega casriga ee xawaarihiisu aadka u sarreeya 4G Plus ee dhinaca internetka. sidoo kalena waxaa bisha barakeysan ee Ramadaan ay ku wadaa barnaamijka hadda loo helo ku guuleysanaysaan smartphone casri ah. wagaag daawad waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha afraad ee barnaamijka. ka qayb qaataha afraad ee barnaamijku waa موليد أحمد محمد. موليد محمد أحمد. موليد محمد أحمد الله صعبيه. السلام عليكم موليد محمد أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد السلام برنامج كسمان وش دوي موليد واحد وربحني قصة سنة أردت هاي ألقى دقنت يعني دا شوي أنت ضبحنا السفر تروح على حافظ الإعلام على غلط gaar ahaan dugsiga waxaan dhigtaa dugsiga Deegaanka Secondary School waxaan arday ka baxday sanadkii dhaweytoolay ma sha Allah in barnaamijka inta waqtiga kala mawlido barnaamijkan horta wallahi markasta oo daawada ana xiiseeyaa ma sha Allah waa shaqeynaa barnaamijka kala gasho markasta jeclaan daawada waxaad aad u xasuusnaataa in laba jeer laba qaabtood laba jeer inta naamin doona bismillah waa ku bilaabi doona su'aasha koobaad su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa ereyga weed asalkiisu waa af ingiriisi marka uu af soomaali yahayna waa ereyga weed asalkiisu waa af ingiriisi marka uu af soomaali yahayna waa ba hadal, ta jalbeeb, ja tiraab ama odhaah, xa dhammaan. هذا صار سؤال دبينا بلي دبينا وهاجاك waxaan doonaynaa marka koowaad inaad nacaawsaan su-aashuna waxay odhanaysaa
ereyga weedh asalkiisu waa af ingiriisi marka uu af soomaali yahayna waa ba hadal, ta jalbeed, ja tiraab ama odhaah, xa dhammaan. imise qof ayaa le waa ba oo waa hadal, imise qof ayaa le waa ta oo waa jalbeed, imise qof ayaa le waa ja oo waa tiraab ama odhaah, imise qof ayaa le waa xa oo dhammaana. aan susoo noqono badi dadkaasi waxay nagu idhahdeen waa ja oo waa tiraab ama odhaah. weedh anu soomaaliya moodayskii hore waxaan ku raacnaa dadweynaha dadweynaha ja oo tiraab ama odhaaha ayaynu wadeegi doonaa. jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa asxaabiyaddii malakul jibriil ilaahay salaanta ugu soo dhiibay waxay ahayd. asxaabiyaddii malakul jibriil ilaahay salaanta ugu soo dhiibay waxay ahayd ba khadiija bintu khuwayd, ta aamina bintu wahab, ja saynab bintu jaxash, xa sumaya bintu khiyaad. su-aashaa jawaabteedan sodday waxa weeyaan ba'da ba'da oo khadiija bintu khuwayl. ba oo khadiija bintu khuwayl umulmu'miniin baan wadeegi doonaa. jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha saddexaad dhiigga xalaasha ahi waa ba beerka iyo beeryarada, ta beedka, ja xoolaha, xa kalluunka. cabsaq su-aashaa jawaabteedan sodday waxa weeyaan ba'da oo beerka iyo beeryarada ba oo ah beerka iyo beeryarada. laba jeer laba kaa tuli dadweyne naagsan waa hagaag. ba oo beerka iyo beeryarada ayaynu wadeegi doonaa. ba beerka iyo beeryarada. jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha afraad waxay ku odhanaysaa dhallinyaradii kabacaddu waxa kabacad loogu bixiyey waxa ay xidhan jireen. dhallinyaradii kabacaddu waxa kabacad loogu bixiyey waxa ay xidhan jireen. ba kabacad cad, ta shaadh cad, ja gocad, xa dhammaan. wajada ja oo ah gocad dhallinyaradii kabacad inaan laba kaa tuliya dadweyne naarsiin labaga tur laba ka mida ayaan kaa saari doonaa. laba ka mida ayaan ka tuuri doonaa. su-aalahaasi waxaa isku soo hadhay ta oo shaadh cad iyo xa oo ay ku jiraan labadii su-aaloodee hore ee ahaa gocad iyo kabacad. aada ugu fiirsan. ta oo shaadhcada iyo xa oo ay ku jiraan weliba kabacad iyo gocad oo dhammaan xa oo dhammaana. xa oo dhammaana ayaynu wadeegi doonaa. jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha shanaad waxay ku odhanaysaa nebi moxamed qur'aanka alla waxa uu ku sheegay. nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qur'aanka alla waxa uu ku sheegay magiciisa. ba 2 jeer, ta 4 jeer, ja 6 jeer, xa 8 jeer. magaca moxamed waxa uu qur-aanka ku soo arooray. su-aashaa jawaabteedan sodday waxa weeyaan ba'da ba'doo ah 2 jeer. waxay u ka adhsan hal maroo dadweynaha iyo hal mar inaan laba kaa tuuraa. haddii alla idhaaho ba'daas inaad badeersi inaad taagnaan doonto maalinta beritaan magaan kasii anba qaadi doona. haddii alla idhaaho waxaad si aad u xusuusnaataa inaad noqoto qofka ugu horreeya halkan iman doona. maanta qof ayaa shalay halka aad ku tagto kale ku kacay waqtigaa ka dhaco muhimanin markaa qofkii sidaasuu ku maqnaa. qaar badan oo la ballan inamay soo noqonba isku daberi inaad soo noqoto go-aan waxba istaantaa kura aada loogu sacabiyo. waa hagaag daawadayaal
haddii alla yidhaahdo isla xilligan oo kale isla waqtigan oo kale ayaa daawan doontaa tartamayaasha ka qayb geli doona u tartami doona barnaamijka hase yeeshee xilligan waxa ay soo gaadhay weydiintii aad warcelinta kusoo samayn jirteen intaanan idin soo weydiinin weydiinta aad warcelinta kusoo samayn doontaan barnaamijka kii ka horreeyey weydiintaan idin soo weydiinay waxay ahayd agabka aqal soomaaliga lagu dhiso ee la duubo waxa loo yaqaan agabka aqal soomaaliga lagu dhiso ee la duubo waxaa loo yaqaanaa ba dabxeero iyo heeryo ta harar iyo dhigo ja surad xa lool iyo xakab waxa ay warcelinta sax ku ahayd surad dad fara badan ayaa dabcan markaasi ka soo jawaabay oo warcelin ku soo sameeyey dadweynahaasi tirada badan leh ee warcelinta ku soo sameeyey waxaa nasiib u yeeshay in ay si sax uga soo jawaabaan qofka magaciisu uu yahay rooble miro nuux oo jooga magaalada burco lambarkiisuna uu yahay aber 6599 aber 5648 waxa uu joogaa magaalada burco xarunta gobolka togdheer halkaasaanu dabcan ka qaadan doonaa inta aanan weli weydiintaan soo weydiinayna aanan u gudagelin barnaamijka kii ka horreeyey kii kasii horreeyey dabcan su-aashii aan tilmaanada ahayd ee tabadda waxaa laga samayn jiray qabada saanta lo-da saanta geela dhirta waxa ay sax ku hayseen barnaamijkii kan ka horreeyeyba ku tilmaanay in saanta geela laga samayn jiray shalay waan sheegnay dabcan qofkii ku guulaystay waa lala hadli doonaa baan ku yidhi jaamac nuux xuseen waa lala hadlay hadda ayuu stuudiyoga inoogu yimi aad baan usoo dhaweynaynaa si aan abaalmarintiisa u siino markaasi aan soo dhowaado jaamac faarax yuusuf dabcan jaamac yuusuf baa kasoo jawaabay jaamac faarax yuusuf baa soo dhawaado السلام عليكم جامع فارح يوسف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عيدنا وكسينا طبعا مركب قف قانون دريس كحنا ساس لو رجت سوا ها ساس وي كوفيد محنا ها ساس وي اد بكو سلامات يا برنامجنا كسو دوينيا اي هلا waxaad ciidamada qalabka sidoo aad baan ugu faraxsanahay barnaamijka meesha waxaad ka soo jawaabtay su'aashii tabada ahayd su'aasha halka joogtay ma ka soo jawaabtay waxaan joogaa Hargeysa xageed ka daawanaysaa suuqa barnaamijka waa daawataa barnaamijka sidaad u aragtaa markaa barnaamijku waa barnaamij aad u qiimo badan oo waxaan ku wari bulshada wax ku celiya oo bulshadu leeyahay oran karaa barnaamijkan macluumaad ku baxaya ka macluumaad aad u wanaagsan weeyaan oo dadku ay wax ka faa'iideeyaan marka su'aashan ka soo jawaabaysay mesela talo ku guuleysan doonta ku horena ma ka soo jawaabtay ku hore ka soo jawaabay dee markastaba kulli waa rajaynaysaa inaad guuleysato aad baan ugu hambalyeynaa hadiyada aad ku guuleysatay wax weeyaan mobile 4G yes oo flash 4G flash 4G wirelessna way leedahay asxaabtooda waa kula isticmaalayaan ciidanka oo dhan marka xog badan iyo macluumaad badan oo ka heli doontaa aad iyo aadna loogu saabiyaad aad iyo aad baan salaamaya aad markaas u diyaar garowdaan dabcan su'aashaan soo weydiinaynay ee warcelinta aad ku soo sameeyseen weydiinta aan soo weydiinaynay ee warcelinta aad ku soo sameyn doontaa waxay noqon doontaa habeenkan caawa eega muraayadiina halna waa yaabkii halna waa amakaag mahmahda ninkii yidhi waxa uu ahaa hal waa yaab halna waa yaabkii halna waa amakaag mahmahda ninkii yidhi waxa uu ahaa ba ina cali qablax ta ina sanweyne ja ina xagaadheere xa ina dhalin ileeye hal waa yaab halna waa yaabkii halna waa amakaag mahmaada ninkii yidhi waxa uu ahaa ba ina cali qablax ta ina sanweyne ja ina xagaadheere xa ina dhalin ileeye waxaan filayaa daawadayaal in aad warcelinta saxda aad ku soo samayn doontaan waxaanad warcelinta saxda aad ku soo diri doontaan lambarka gaaban ee 822 inta aanan barnaamijka soo gabagabayn sidii aan tilmaamay dabcan isagana barnaamijka waxaa la socda barnaamij qaybka oo hadal oo hel oo isagana dadka ugu isticmaalka badan la abaalmarina lagu guddoonsiinayo barnaamijka hadal oo hel waxaa nasiib u yeeshay dabcan barnaamijkankii ka horreeyey in uu ku guulaysto ninka magaciisu yahay dayib yuusuf xasan oo lambarkiisu yahay aber 659 341 dayib waxay la joogaa stuudiyan filayaa ha soo dhowaado aadna aan loogu sacabiyo
السلام عليكم. طيب يوسف حسن kusoo dhawo barnaamijka Kismaal aad baan kusoo dhaweynaya. طيب adoo qaadaya waxaad ka mid tahay macaamiisha ku guuleystay barnaamijka hadal oo hel shirkadda isgaarsiinta Samtel bixinayso. barnaamijka wax macluumaad ma kala socota ugu horreyn bal Kismaal ma daawataa marka hore waan daawataa ay barnaamijka Kismaal ka warshada kula muuqdaan u fiican intii aan ku guuleystay marinta ma daawataa marka u fiican shirkadda kula soo hadashay dabcan mobil baad ku guuleystaa lagu yiri abaalmarinta adiga ku doonsiinaya waa mobil weyn oo casri ah oo runtii dadka hadal hel loogu talagalay aad iyo aad loogu sacabiyo dayib aad baan ugu ambaleynayaa aad iyo aad leenahay isla barnaamijka hadal oo hel barnaamijkii ka horeeyay dabcan qofka aynaa sheegin inuu ku guuleystay waxa waa jaamac nuux xuseen oo lambarkiisu yahay 9 abar 77 abar 8 oo jooga magaalada Ceergaabe xarunta gobolka Sanaag. magaalada Ceergaabe ayuu markaas si jaamac ka qaadan doona shirkadda isgaarsiinta Samtel xafiiska ugu dhow. ugu dambeyntii inta aan barnaamijkan oo kala kulmi doono meel kasta oo joogta waxaan ugu mahadcelinayaa khiyaarta barnaamijka ila qayb gashay ee kula sugnaa studio telefishinka qaranka Soomaaliland. idinkana aad baan ugu mahadcelinayaa khiyaarta magaalada xagga dambe ka soo bixi doona aad baan ugu mahadcelinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. مقال صافيو أسألوك لهين صوتين